رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري oo ay wehlinayaan xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaano iyo taliyaasha ciidanka booliiska iyo militariga ayaa si heersare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobi oo ay wehlinayaan ku xigeenadiisa guddoonka baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada Jubbaland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku soo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowr bisha soo socota waxaa leeyahay mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaa waa marti kumanti deegaanka ayuu atimid dalka ayuu markaa ra'iisul wasaaraha oo ahayd aad baan u faraxsanahay inaan timaado haddaan kaftan ku darsado dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed oo isteediyada oo dhan iyo Soomaaliya kulli mas'uulka ka ah marka in socodkiinu yaraado oo shaqadiinu yaraato oo gacantiinu yaraato oo codkiinu ku yaraado isteediyada waxaa arrin iska jirta taa marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaynan martina cid u ahayn deegaankiina ay tahay mas-uuliyaddiina saaran ay tahay dhulka xukuntaan ay tahay ra'iisul wasaare Qeyre ayaa argada Kismaayo kula hadlay kumanaan dadweyne ah oo isugu soo baxay soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha shacabka reer Kismaayo waa u mahadcelinaya guud ahaan shacabka reer Jubbaland waa u mahadcelinaya halkan waxaa ka muuqata farxad iyo rayn waa ogahay inaad quraacda taagnaydeen waa ogahay inaad na sugayseen laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu waxaana aad idinkaga mahadcelinayaa qorraxda aad taagnaydeen waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa socdaalkiisu waxa uu salka ku hayaa xoojinta wada shaqeynta dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda dhexe arrintaas oo muhiim u ah geedi socodka soo kabashada dib u dhiska Soomaaliya iyo soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed